السلام عليكم أصحابتين قالقا kusoo dhawaada mowduuceena maanta karootada waxay ka mid tahay cuntooyinka Soomaalida taqaano lagana helo dhulkooda. Karootada waxay leedahay faa'iidooyin badan oo aan ahayn kaliya in aragga wax u tarto. Waxaan halkan kusoo koobaynaa dhowr qodob ee karootada ka hortagga aan loogu isticmaalo. Qodobka koowaad, kolestaroolka. Daraasad la sameeyay dad qaba cudurka kolestaroolka ee ku nool dalka Ingiriiska ayaa waxaa soo baxayaan heerka kolestaroolka inuu hoos u dhacay 11% markii ay qaateen in ka yar rubac karoota ah maalin kasta muddo 3 usbuuc ah. Waxay kaloo u wanaagsan tahay caafimaadka wadnaha. Qodobka labaad, dhiig karka. Karootada waxaa ka buuxa maadada loo yaqaan potassium. Waxay jirka u tartaa inay waasiciso xididada dhiigga, khaasatan kuwa cadaadiska dhiigga uu ku kaco. Qodobka saddexaad, difaaca jirka. Karootada waxay ka mid tahay cunnada caafimaadka jirka sare u qaato, taasoo firfircooni ku abuurta unugyada cadcad ee jirka ka difaaca caabuqyada noocyadiisa kala duwan. Qodobka afaraad, dheefshiidka. Waxay karootada u wanaajisaa dheefshiidka iyo shaqada caloosha iyo mindhicirada qofka. Waxay ka hortagtaa calool fadhiga taasoo yareyso halista baabasiirka. Qodobka shanaad, aragga iyo caafimaadka indhaha. Karootada waxaa ku jira maado la dhaho beta carotene oo indhaha faa'iido ugu jirto siyaadiso awoodda aragga. Waxay kaloo ka hortagtaa dhaawaca sokorta isha u gaarsiiso caadka indhaha fuulo. Karootada waxay kaloo ka hortagtaa daawana u tahay xanuunada ku dhaca indhaha qofka markuu duqobo. Waxay kaloo karootada u wanaagsan tahay caafimaadka ilkaha. Waxay kaloo u wanaagsan tahay sokorowga. Waxay kaloo karootada waxtarkeedu badan tahay inta aan la karin sideeda loo cuno ama cabitaan ahaan loo shiito.